السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرتها قيمة يقايا نجمد الميل وباء توكتان وصاحبكي نعوكير مقدشة تبين ونجد ونيسان أصبح ولكن عيد ماذا بنتلان وكب حيث كرج iyo sababta ay uga baxeen warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhaqangelinta dhexdhexaadintii laga dhaxwaday Puntland iyo Somaliland kadib markii dhawaan ay Garowe iyo Hargeysa tageen xubno ka socda IGAD iyo UNISOM iyadoo qoraal ka soo baxay uu nuxurkiisu ahaa in deegaanka Tuqarraq ee dagaalku ka dhacay ay noqoto meel ka caagan ciidamada labada dhinac. Somaliland waxay ogolaatay in ay dib uga noqoto halkii ay joogeen ka hor 8 Janaayo 2018 laakiin Puntland oo joogtay 8 Janaayo Tuqarraq heshiisku ma dhigayo inay dib ugu noqon karaan halkaasi, waxaana la doonayaa in Tuqarraq ay noqoto meel ka caagan ciidamada ama battle zone. haddaba intaasi kadib maxaa ka cusub deegaanka Tuqarraq? qodobadii ay beesha caalamka ku dhexdhexaadisay labada maamul ee Puntland iyo Somaliland ayaa qayb ka mid ah dhinaca Puntland laga fuliyay ila xogogaal ah oo jeeda labada dhinac isku hor fadhiyaan jooga ayaa waxa ay xaqiijiyeen in hubkii cuslaa Puntland dib uga soo celisay magaalada Garowe iyada oo toddobaadka soo socda arrimaha ugu muhiimsan labada dhinac fuli doonaan. qodobada ugu horeeya ee la fulin doona ayaa ah in maleeshiyaadka labada maamul la kala raro oo mid waliba qiyaastii 10 ilaa 15 kilomitir goobaha ay hadda kala joogaan laga qaado si qodobada kale loo fuliyo. arrimaha ayaa waxaa iska kaashanaya dowladda federaalka, IGAD, qaramada midoobay iyo dowladda Ingiriiska oo ballan qaaday inay bixin doonto adeega kharashka lagu fulinayo heshiiska labada dhinac ay ogolaadeen. maamulka Puntland ayaa bilihii ugu dambeeyay cadaadis lagu saarayay inaanu wax tallaabo ah qaadin iyada oo uu Cabdiweli Maxamed Cali Gaas arrintaasi ku guuleystay ayna yaraatay abaabulkii iyo hadaladii kululaa ee Puntland ay ka wadeen hawada. ciidamo tiro badan ayaa dib ugu soo noqday goobihii hore loogu dagaalamay iyadoo ay noqdeen magaalooyinkoodiina dib ugu noqdeen. magaalada Garowe waxaa aad looga dareemayaa ciidankan oo goobaha lagu qayilo aad u dhaban. xogogaal ayaa sheegaysa in maamul goboleedka Somaliland ay dib ugu noqon doonaan meel aad uga fog magaalada Laascaanoodna lagu heshiin doono iyaduna ay noqon doonto mid dhexdhexaadin qaramada midoobay iyo urur goboleedka IGAD ay ka gali doonaan. marka ugu dambeysana gobolka Sanaag, Sool, Cayn ay noqon doonaan deegaano Somaliland laga soo rujiya oo loo soo wareejiya maamulka Puntland iyo Somaliweyn. maxaa yeelay deegaanadaasi dadka ku tirsada ay dhammaantoodu aad ula dhacsan yihiin nidaamka dawliga, siyaasiyiintooda iyo urur goboleedka hadda ka jira meelkaasi ee Khartoum State. isagana raggii siyaasiyiinta ugu badnaa ay la dhacsan yihiin siyaasadda dowladda dhexe ayna doonayaan inay xaqooda maamul goboleed ahaan uga dhacsadaan dowladda dhexe. waa haddii Somaliland ay ogolaato in saddexdaasi gobol ay ka mid noqdaan maamulada Soomaalida, gaar ahaan Puntland ama Khartoum State oo iswadata oo dhexdhexaadin dowladda la gasha magacaasina ay wax ku hesho maamul goboleed sida ay rajaynayeen. Cali Khaliif Galerna markii wax ku waayay dowladii Xasan Sheikh iyo kuwii ka sii horeeyay uu damac ka galay in uu xoojiyo maamulka Somaliland. maamul goboleedka Somaliland waa maamul siyaasiyiintiisa aanay ku fiicneen ballanta, waxayna mar waliba isku dayayaan in ay wax hase yeeshee markani waxay arkeen Puntland oo aan la dhaqaajin karin. odayaasheeda dhaqanka dhammaan shacabkii dhalinyaradii ay isu soo baysteen inay Somaliland ay ka rujiyaan gobolka Sool. Somalilandna ay dareentay in dagaalo fara badan ay ku furan yihiin gobolka Sanaag, deegaanka Cilaf Weyn ay dagaalo xoogan ku dhexmarayaan beesha uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi iyo beel kale ku kacsan. Muuse Biixina lagu eedeeyay in uu taageerayo beesha uu isaga ka
soo jeedo sida xogtu sheegaysana hub noocyo fara badan oo loogu talagalay in Somaliland maamulkooda ku difaacaan. Somaliland ayaa iminka qarka u saaran inay dowladda dhexe isku soo dhiibto waayo waxay cadaadis fara badan kala kulantay caalamka, waana in maamulkaasi loo dhiibaa siyaasi ka furfuran Muuse Biixi oo dareemi kara danaha shacabka Somaliland. deegaano fara badan oo ka tirsan Somaliland ayaa waxay ku kacsan yihiin maamul goboleedkaasi, waxayna aad u rajeynayaan in ay mar uun la midoobaan Soomaaliya inteeda kale. baasaboorka Soomaalidana ay ku maraan adduunka dacladiisa, ayna ku helaan caafimaad, waxbarasho iyo midnimada Soomaaliya. waxay aad u goconayaan kala tagii 20 sano ee lasoo dhaafay ku habsaday shacabka Soomaali weyn ee ay ka mid yihiin maamul goboleedka Somaliland. alla waxaan uga baryaynaa ummadda Soomaalida inuu uurkooda burcad isu mariyo, iskuna keeno mar uuna ay midoobaan. kuwa ka tarinaya kala go'ista Soomaaliyana oo Ilaahay dadka ka hor wareejiyo kuwa qabiilka iyo qabyaalada ku dhisaya maamulada si ay u curyaamiyaan dowladda dhexe. waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu kuwaasi meesha ka leexiyo si dad kale oo wanaagsan oo jecel midnimada uu halkaasi ay u qabsadaan. halka naga daawanaysaan waa Muqdisho TV.